bilihii la soo dhaafay warshadaha adduunka ee soo saara jajabyada yaryar ee semiconductor-ka ama microchip-ka waxaa ku yimid oo lagu arkayay hoos u dhac ballaadhan oo soo wajahay dhanka wax soo saarka qalabkan laga sameeyo silicoonka maadaama ay haatan adkaatay sida lagu helayo silicon oo furaha u ah qalabka iyo weliba aalad kasta waxaana dhibaatadani horseeday hoos u dhaca dhaqaalaha iyo wax soo saarka warshadaha iyo shirkadaha waaweyn ee caalamka markii arrintan lagu daro xiisada joogtada ah ee sii kordhaysa ee u dhaxaysa Shiinaha iyo Mareykanka ee ku aadan dagaalada ganacsiga adduunka balse daawadayaal marka hore ku soo dhawaada barnaamijkeennii xulashada dunida oo aad markasta kala socotaan Horfadhi Media waxaan idin la socodsiiyay anigoo ah Yaasiin Cabdi qalabkan yar ee microchip-ka ee haatan xasaasiga ah ayaa noqday kan ugu muhiimsan ee salka ku haya xiisadaha ama loolanka tiknoolajiyadeed ee u dhaxeeya quwadaha waaweyn ee Mareykanka iyo Shiinaha kaasoo xoogaystay dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxaase xusuus mudan in dagaalka Mareykanku kula jiro shirkadaha ganacsiga ee laga leeyahay Shiinaha doorkiisu si cad u muuqday tan iyo markii maamulkii madaxweynihii hore ee Donald Trump uu bilaabay inuu qaar ka mid ah shirkadahaasi albaabka isugu dhufto una aqoonsado inay halis ku yihiin amniga qaranka Mareykanka gacan ku haynta shirkadaha soo saara qalabka chipka ama jajabyada yaryar ee semiconductorska wuxuu qarnigan la joogo la mid yahay sidii qarniyadii la soo dhaafay loo qiimeyn jiray dalka haysta ilaha wax soo saarka saliidda adduunka taasoo macnaha inoo sheegaysa in dalkii maanta gacanta ku dhiga warshadaha soo saara chipka yar uu haatan caburin karo awoodaha military iyo tan dhaqaale ee dalal badan oo caalamka ka mid ah haddaba waxa isweydiin mudan muxuu yahay aaladan yar ee dunidu loolanka ugu jirto hanashadeeda horta qalabkani waa aasaaska warshadaha waaweyn ee digitalka ama soo saara tiknoolajiyada cusub ee dunidu maanta isticmaasho macnaha waxa la dhihi karaa maskaxda ka dambaysa tiknoolajiyada casriga ah wuxuuna ka kooban yahay san hore idinku sheegnay silicon kaasoo koronto ku butaaciya aaladaha waana qalab elektarooni ah oo ka kooban qaybo badan taasoo loo yaqaano isku xirka iyo isku dhafanka ama IC haddaba arrintan ayaa keentay in wadan kasta oo dunida ahi maanta ku taamo inuu horumar fiican ka gaadho tiknoolajiyada digitalka inuu jiibyada kala duwan ee semiconductorska uu ka soo iibsado dalalka Taiwan ama Kuuriyada Koonfureed sidaas darteed loolankii iyo hirdankii ka dhaxeeyay labadan dal waa Mareykanka iyo Shiinaha ayaa haatan u wareejiyay inay diiradda saaraan Taiwan waxaana la odhan karaa waa mid dabiici ah sababtoo ah sida khubarada qaarkood sheegayaan dalka Taiwan waxay gacanta ku haysaa oo soo saartaa ilaa 70% wax soo saarka caalamiga ah ee jiibyada yaryar ama semiconductorska tanoo noqon doonta mid ku suntan dagaalada mustaqbalka dhow ee ganacsiga adduunka iyo weliba himilooyinka fog ee tiknoolaji ee weliba sida khaaska ah labadan quwadood ugu tiirsanaan doonaan isaga oo taa ka duulay ayuu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden bilaabay inuu dhaqaaqo meelaynta iyo weliba dabagalka jiibisyada semiconductorska iyo weliba shabakadaha isgaarsiinta ee jiilasha cusub oo uu dhaxaad u ah istiraatiijiyada Mareykanka ee ku wajahan Aasiya si loo hor istaago horumarka Shiinaha ee muddooyinkii u dambeeyay sida xawliga ah u socday taa beddelkeedana xukuumadda Beijing waxay iyana dhankeeda ballaarisay dhaqdhaqaaqyada military iyadoo sidoo kalena kordhisay faragelinta ay ka wado jasiiradda Taiwan oo u jirta 140 kilomitir una kala qaybiyo marinka Formosa falanqeeyaasha ayaa qaba in sababaha asaasiga ah ee yaraysay wax soo saarka tiknoolajiyada jiibyada uu ka yahay cudurka coronavirus-ka oo weli dunidu la ildaran tahay marka lagu daro shirkadda tiknoolajiyada Shiinaha Huawei oo iyana siyaabo badan oo qarsoodi ah u soo iibsanaysay qaybo badan oo kamid ah qalabkan kuna kaydisay bakhaaro arrintan oo loo nisbaynayo dagaalka ganacsi ee kala dhaxeeya dawladda Mareykanka taasoo ay raad weyn ku reebtay wax kasta oo ay ku jiraan jiibisyada semiconductorska ee la'aantood aanay shaqayn karin sida gawaarida telefoonada casriga ah qalabka elektarooniga ah ee lagu ciyaaro kombiyuutarada iyo weliba laptoobyada khubaradu waxay kala xusaan in qaybo badan oo kamid ah telefoonada cusub ee iPhone 12ku ay xadidnaayeen oo tayadiisu aad u hooseysay sababo la xiriira yaridii ku timid tiknoolajiyada semiconductorska ee saameynta dunida ku yeelatay sidoo kale ciladihii dhawaan ka soo ifbaxay aaladda PlayStation 5ka ee shirkadda Sony iyo qaar badan oo kamid ah qalabka lagu ciyaaro ee Xbox ku kamid yahay ee shirkadda Microsoft ayaa loo aaneeyay isla dhibaatadaasi sidoo kale saameyntii uu ku yeeshay soo saarayaasha gawaarida casriga ah ee adduunka ayaa muuqatay iyadoo shirkaduhu ay si isdaba joog ah u shaacinayeen in dib u habeyn lagu sameyn doono modeladii hore ee la soo saaray bishii Maarso 19keedii 2021 wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP ayaa soo warisay in shirkadda gawaarida ee Nissan ee laga leeyahay Japan ay xiri doonto
qaybo ka mid ah warshadaheedii ay ku lahayd waqooyiga Ameerika muddo isbuuci ah kadib markii laga warhelay yaridda soo wajahday semiconductorska sida uu sheegay afayeen u hadlay shirkadaasi. Shirkadda Faransiiska ee Renault ayaa sidoo kale ayana hakisay soo saarista mid ka mid ah warshadeeda ku taala dalka Mexico muddo dhowr maalmood ah. Arrintan ayaa ku soo aaday kadib markii shirkadaha gawaarida ee Honda iyo Toyota ay sidoo kale ku dhawaaqeen in wax soo saarkii la joojiyay muddo toddobaadyo ah warshadahooda ku yaala waqooyiga Ameerika sababo la xiriira dhibaatooyin kala gedisan oo soo food saaray qalabkooda technology. Gabaabsiga ku yimi qalabka semiconductorska ee dunida ka jirta awgeed, shirkadaha Honda iyo Nissan bishii Febraayo ee la soo dhaafay ayay bilaabeen inay hoos u dhigaan wax soo saarkoodii sanadkan. Dhankeedana bishii Febraayo 9keedii 2021 wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xigatay shirkadda gawaarida Jarmalka ee Volkswagen ayaa sheegtay in shirkaddu saadaalisay in qalabka elektarooniga lagu farsameeyo gawaaridu uu yaraan doono horaanta 2021 laakiin ay shirkaddu samayn doonto wax walba oo ay awoodo si ay magdhow uga bixiso dib u dhaca soo saarka gawaarideeda inta ka harsan sanadkan. Wakaaladda ayaa sidoo kale sheegtay in shirkadaha labaad iyo saddexaad ee ugu weyn ee soo saara gawaarida ee ku yaala dalka Japan ee kala ah Honda iyo waliba Nissan ay sanadkan iibin doonaan ilaa 250,000 oo gaari in ka yar labada sanadood ee maaliyadeed ee lagu jiro maadaama yaraanta caalamiga ah ee kaararka yaryar ay dhaawacayso wax soo saarka. Madaxa shirkadda gawaarida Mareykanka ee General Motors ayaa baahida ballaaran ee adduunka uu qabo ee chipisyada semiconductorska iyo waliba yaridda ku timid qalabkani ay hoos u dhigi karto faa'iido sanadeedkii ilaa $2 bilyan waxayna tani horseeday hoos u dhaca wax soo saarka saddexda warshadood ee ku yaala waqooyiga Ameerika. Halka ay shirkadda Mazda Motors ay isla maalintaasba iyana sheegtay inay filayso inay wax soo saarku hoos u dhaco ilaa 7,000 oo baabuur bishan gudaheeda sababo la xiriira gabaabsiga ku yimid chipisyadaas iyadoo celcelis ahaan qalabka loogu talagalay halkii gaari inuu ka kooban yahay inta u dhaxaysa 50 ilaa 150 chip oo kala duwan. Shirkadaha waaweyn ee gacanta ku haya wax soo saarka ugu badan waa shirkadda TSMC ee Taiwan, Samsung oo ku taala Kuuriyada iyo waliba shirkadda Mareykanka ee Intel kuwaas oo soo saara chipisyada noociisa kala gedisan. Inkastoo ay jiraan shirkado kale oo yaryar oo soo saara qalabkan elektarooniga ah, haddana ma awoodaan inay soo saaraan mid la taya iyo waxqabad bala ah kuwa shirkadaha Taiwan ay soo saarto. Sidaas awgeed shirkadda TSMC ee Taiwan waxaa la oran karaa waa tan ugu weyn ee nooceeda ah marka loo eego adduunka oo dhan, iyadoo shirkaddu ay soo saarto nooc kasta oo kamid ah semiconductorska loo adeegsado sida telefoonada casriga ah, kombiyuutarada, gawaarida iyo waliba qalab kasta oo elektarooni ah. Waxaana sidoo kale aan shaki ku jirin in badiba dhammaan nidaamyada hubka ee la dhisay qarnigii 20aad ay shirkaddu soo saartay qiyaastii ilaa 60% chipisyada ay isticmaalaan shirkadaha Mareykanka sanadkii 2020 taasoo warbixin uu daabacay wargeyska Mareykanka ee New York Times ku sheegay in shirkadda Taiwanisku ay hadda hoggaanka u hayso tartanka loogu jiro soo saarista chipiska yaryar ee semiconductorska casriga ah, iyadoo qalabkeeduna noqday aasaaska warshadaha waaweyn ee digitalka ee soo saara teknoolajiyada cusub. Waana tan keentay in waddan kasta oo dunida ahi maanta ku taamayo inuu horumar fiican ka gaaro teknoolajiyada digitalka ah, inuu chipisyada kala duwan ee semiconductorska uu ka soo iibsado Taiwan ama Kuuriyada Koonfureed. Suuqa ganacsiga ee Taiwan ee sida xawliga ku socda iyo doorka ay ku leedahay teknoolajiyada caalamka ayaa si cad uga muuqday adduunka inkastoo ay Taiwan ay tahay jasiirad yar oo aan tirada dadkeedu aanu ka badnayn 24 milyan oo qof, haddana waxay bartamaha kaga jirtaa sidii ay door fiican uga qaadan lahayd teknoolajiyada adduunka. Sidaas darteed dagaalka ganacsi ee u dhaxeeya Shiinaha iyo Mareykanka ee socda waxaa jira oo sii kordhaya doorka muhiimka ah oo ay Taiwan ka ciyaari doonto arrintani.